dagaalaa ka xignaa waa la isku baaba'aa dawladda inay ogaataan rabaa oo kula diriro oo wixii naga dhiman haya naga dhinteen hantidayada iyo dadkayaga iyo dalkayaga inaan difaacnaan doonaynaa ka baqan mayno yacni mataqaanaa kana xishoon mayno isku dhimanayaa dhiig baa ka dhacaya waa la isku dilayaa qofna xoolihiisa cidlo uga tegi maayo waa qaar ka mid ah dadka degan inta u dhaxaysa xaafadda Kordamac Ex Control Asluubta iyo Ceel Timiro kuwaas oo ka cabanaya dhulboob ay sheegeen in lagu hayo dhulkooda looguna awood sheeganayo shaarka dawladda dadkan oo isugu jira odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyaro iyo waxgaradka xaafadda ayaa cabasho xoogan muujiyay waxaana ay sheegeen in dhulkooda ay u haystaan dukumeentiyo rasmi ah oo cadeynaya lahaanshaha dhulkooda dadkan ayaa waxay tilmaameen inay soo baxeen rag wata waraaqado iyo dukumeentiyo ay ku sheegeen kuwa sharci darro ah kuwaas oo damac kaga muujinaya dhulkoodii oo sharciga ay u haysteen isla markaana loo sharciyeeyay 8 Meeyadii waxayna baaq dheer ay u direen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaare Xamse iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyagoona ugu baaqay in dadkan awoodda u sheeganaya ay ka qabtaan soo dilo warqadda oo la yiri soo fuli dhulkii loo diray ma soo aadan wuxuu soo aaday dhulkii dhulaan ku qornayn uu wuxuu leeyahay wajibinaya waxa la yaabay waa wax cusub waa wax ku cusub dadka iyo kulli iyo sharciyada iyo wax wadanka ka jira waxaan rabaa intaas in dadka Soomaaliyeed ku baraarugaan oo qof walba ka foojignaado qofkii la soo galay inuu dictation qaato intaas markay joogto waxaan isku daynay inaan tagno maxkamaddii 31 bishii koowaad 2026 waxaan qoranay arji oo ah hor istaag xukunka ugu socdo sharci darrada oo noqosaynin annagoo qasbanayaal waliba oo mudnayn waxaana loo keenay aan shaqo ku lahayn waxaan geynay garsoorihii fulinta soo qoray xafiiskiisa waxaan dhiri galkan annaga nama quseeyo shaqana kuma lihin waana la ku dulminaa arjigii uu naga qabtay halkaas ku qoran tahay waana la ka aqbalay in oo galkeena la ka qabto oo la joojiyo ristaag lagu sameeyo ayadii annagoo sugayna in loo yeero dadkii wax nagu haystay ama qaladka nagu haystay in loo yeero galkii dhamaa waaba la jeebsiiyay waa laga waayay meeshii waxaana soo gaartay galkii inuusan meeshii oolin xafiiskii ninkii garsooraha uu ka maqan yahay haddana fulinta inay kor saaran tahay afarta ka saacan la jabina la leeyahay waa layni soo socdaa waa layni dubina la leeyahay waxaan cabasho ka nahay dhibka intaas la eg oo aan qaadi karin oo aan qaban oo muwaadiniinta Soomaaliyeed dadka canshuur bixiyaasha magaalada Muqdisho degan aan qaban ayaan ugu socdo waxaan rabaa marka bal horta dadkan inay sharci haystaan iyo inay sharciga ku socdaan wada hadalsiiyaan dadka baadidu ka maqan tahay raasana la sheegayo oo na tusaan bal dad aan qano ma ahane waa dad qarsoon oo kala dawladda hanti hadda u abuurayse shaqo abuur baa maqli jiray hanti la xoogayo dad loo abuurayo maanta ka hor ma maqal marka waxaan ka codsanaynaa islaamka u sheegayna cod dheer iyo cod gaabanba dawladdu inay soo farageliso arrintan haday og tahay oo wax soo xugmisay iyaduna iyada aabiyo hooyo leedahay dadkaani ma ahan dad oo isku keenay oo aruurisa ma ahan dad dhul dawladeed degan ma ahan sharci ay wataan qof walba sharci ku degan yahay xalaashiisu ku gatay dhididkiisu ku gatay qof la hagu handadi karo araa ka xoogayo qaadanaya iyo hawla aan hadda ka hadli karin midna ma anagu dawladda aymayno waa dawladeeni canshuurta waa siinaa canshuur bixiyaalanaay dhaqaale naguma baaqdaan asagoo noo dhisan ba canshuurtana naga qaadaya nagana duminaya oo weeraraya anaga cishada ilmihiisa asaguna arrintan soo farageliyo madaxweynaha wadanka asaga wax laga weydiinayo dadkan asaga warqadaha soo siiya hadduusan warqadaha soo siinin islaamkan ha u soo kalaaba maantay hadduusan asaga warqadaha ka dambaynin oo madaxweynuhu uusan hawshan ka dambaynin degmada Hodan Ex Control oo ka tirsan hadda degmada Dayniile markii horena dukumeentiga soo ahaa degmada Hodan ayaa waxa lagu fulinayaa dukumeentiga hawl wadaag baa lagu fulinayaa Hodan waa yaabkiis marka xigta waxa haddana oo meesha jirto oo yaaba hay'adaha garsoorka ee dawladda waxa ay soo qoreen ee aan dadkii meesha deganaa loo yeedhin ee aan la wada hadalsiin ee aan gal dacwadeed lahayn ee aan fadhi lahayn ee aan xukun lahayn ee fulin haddana socdo warqad baan wataa war hadda taa wadatiyo tayada aan isku aragnay nagee xariyaha ciidamada dawladdu ka taliso hebel baa isoo siiyay hebel guri shishadii ku jira dadka yaan la isku baabi'in annagu hantideeda uga tagi mayno nin socda oo uga tagi mayno nin la soo diray oo uga tagi mayno salam min yimid oo wax aan uga tagayna mala waa isku meeshan waa la isku dhimanayaa dhiig baa ka dhacaya waa la isku dilayaa qofna xoolihiisa cidlo uga tagi maayo annagu weerar ma ahin dadkan waxa weeye cashuur bixiyaal baan nahay dawladda annaga dugsi lacag la'aan kuma haysano iskool lacag la'aan kuma haysano koronto biyo lacag la'aan kuma haysano biyo lacag la'aan kuma haysano saasay tahay waa ku raacsano waa ku rabnaa
haddana waa kanaayo wax walba waa nala hortaagayaa dawladda waxaan ka codsanaynaa midka ugu weyn iyo midka dhaxo xilka hayo intaba dadkan u dhaartay waxaan ka codsanaynaa ummaddan inayna kala duwaan dadkan wax boodaya iyo dadkayaga degan inayna kala duwaan ayagaa dalka u dhaartay oo madaxna kala duwaan oo dadkan la kala garsiiyaan qolada nagu dhegan iyo qolada la haysta intaba in la kala garsiiyaan kii la deganaa oo sabaroog iyo rasiid maxamed siyaad barre dawladdii dhexe oo Soomaaliya ay leedahay haysta ayaa saakito lagu soo waabariistay nooloosta hadii dulba loo qoraa ee dhul dawlo dhulkan nooloosta ma ahan waxa way amar madaxweyne uu ku socotaa hadii amar madaxweyne maxkamad ma jirto muxuu ahaa xoog kale ma jiro madaxweyne waxaan hadii aadan arintaas wax laga bedelin annagu waxa weeye adiga iyo ciidankaba in kama xoog yeerin waa iska kiindicinaynaa waan iska kiindicinaynaa waxaan ku dadaalaynaa hadii alla yiraahdo 2 sano ku hartay inaan dagaal kugu gaarsiino hadii ilaa yiraahdo anaan ogolaana 2 bilood habeenkooda 2 bilood oo ku hartay inaan mucaarad noqono oo kula diriro oo wixii naga dhiman hayaa naga dhinteen hantidayada iyo dadkayaga inaan difaacnaan doonaynaa ka baqan mayno يعني ما تقانا كنا حشون ماينو هدي الله يلاهدو ورك أنا وحبس سيم هايو هدي أدون يسيد إن أنا لا دريتيد نوا كل درينا هدي أدون يسيد شرع أدون يسيد اللي هو كلام معنا محكمة ضعفه شرع غفور إلهي كبق هذيك نفسد هذا أبق نفسد هذا أبق نكا تاس وأكون الساحين هيا نولا الكا والصومالي أنا وأكون الساحين هيا دبك عاد وده ملكو جين مهيو وحنا كوكيل ميسي لكن أديك آخر وا هي الدنيا وا هي أولاد وا يسكوا جارين إلهي يجيكوا أبورتك كبق أديك أنت أسان كله وحن كلو كحجنا يا دوميها قبلك هدي لا كوزو قول يا تريها أمنية هدي لا كوزو قول يا علي مهدي وحن كعو سنينا إن يتوس حافظ أوجي مهدان أيجو ويددوين هدكن لا شيران أي لا شيران بان كعو سنينا وحاكلو جرا eedda ugu weyn ummadda inta dhan qof looga yeeray maxkamadda ma jiro qof walba warqadu ordaysa u timid war sharcigaas xagee mara sharciga wuxuu noqday biliiliqo sharciga wuxuu noqday hadii la ku soo galiyaa jabhad sharciga wuxuu noqday hadii la ku soo galiyaa isburburin war soo islaan ma soo dawladeena ma war arintaas hal laga fiirsado hore shibisi sagaani laakiin warqadaan 60kii shibisi sagaani lagu degan yahay 60kii hodan xataa lagu ma degana shibisi sagaani warqadaan laga soo raraayo oo la keenayo halkan annagu ma ogolin waa diidnay dagaal ka xignaa waa la isku baabaa dawladda inay ogaataan raba aqliga bini'aadamka waxa galaya qofka waxa marka hore warqada loo geeyaa marka dambana eedeysana laga dhigaa marka dambana dambiila laga dhigaa marka dambana la xukuma intii midna ma inaanaw waa dad lagu soo duulay oo biyo la soo gambanaan annaguna qof oo gambanaan lama arko qofka waxa la rabaa in runta la isku sheegaa la rabaa annaga hadii la dacweynayo maxkamadda gobolka banaadir galkii aan ka furno waa la diiday annaguna dagaal diyaar la nahnay hadii la diiday sharcigi annaguna sharci ma ogolin sharcigi dawladda diiday annaguna sharci waa diiday hadii sharciga ogoshay dawladda ama sharciga ogola ha in la ogolaa in la ogaado warkaas dawladda sharciga ha ogolaato in maxkamadaha aan ka furo galalka ha ogolaato in warqada aan furha la ogolaado arkiifyada gobolka banaadir ku jirna annagu kuma jiro warqada annaga hadda lagu fulinayo gobolka banaadir ma laga soo helaayo ma la yeelaayo wax ka jira lama arko ma shaqaynayso waa la isdilaa dukumeenti wax ka jira ma waa isku dagaalaynaa dawladda inay ogaataa waa billahi tawfiiq meesha wixii loogu yimaadaa waa in la isdilaa aysan maxkamadda hal ogolaado inaan galka furno